السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nolosha bini'aadamka mar walba waxaadan filin ayaad arkaysaa. maalinba wax cusub ayaa soo yeeraya. haddaba sheekada maanta aan idiin wado waxaa laga yaabaa barkiin inaad aad ula yaabtaan marka aad maqashaan nin hooyadiis iyo awowgiis u dilay in uu ka dhaxlo lacagta ay iyagu shaqaysteen. arrintan oo ka dhacday dalka Mareykanka. haddaba waxaan idinka codsanayaa inta aan sheekadan u gudagelin inaad channelka subscribe noo siisaan, like siisaan, asxaabta kalena aad la wadaagtaan. mar walbana halkan waxaan kusoo gudbinaa dhacdooyinka noocan oo kala ah iyo wixii markaas aan isu leenahay waa xoga dahsoon oo dadku aanay ka warqabin. aynu u galno barnaamijkeena. nin 28 jir ah oo lagu magacaabo Nathan Carman ayaa la soo taagay maxkamad ku taala Frontland oo ka tirsan dalka Mareykanka. ninkani ayaa la sheegay inuu markii u horeysay ku dhashay xanuunka dhinaca maskaxda ah kadibna daawooyin badan la siiyay. markii uu soo gaaray da'da 17 sano jir ayaa la sheegay inuu gabi ahaanba joojiyay daawooyinkaasi. marka isbitaalka laga soo siiyay uu geyn jiray meelaha qashinka lagu rido iyadoo aanay ciido ogaanin. haddaba sida warbixintan dheer oo ay qortay majalada Daily Mail ay sheegayso, ninkani ayaa maamada dhashay lafteedu waxa ay u haysatay ama hooyada dhashay in wiilkeeda sida caadiga ahayd uu qaadan jiray daawooyinkii xagga maskaxda. balse sanadii 2014 ayaa ninkan waxaa la sheegay in awowgiis dhalay hooyadiis uu markaasi la helay meedkiisa oo saaran meel sariira. kadibna baaritaan la sameeyay laga waayay wax raadada iyadoo loo qaatay in xanuuno markaasi odagu uu la noolaa oo xanuunada sida sokorta iyo dhiigkarka iyo kansarka waxyaabaha la mid ah uu markaasi u geeriyooday. asaatee baaritaan dheer kadib oo mar dambe la sameeyay ayaa la ogaaday inuu isaga ka dambeeyay dilka awowgiis. waxaana ku soo xigtay hooyadiis oo la sheegay in uu u kaxeeyay meel xeeb ah oo aad uga durugsan dhulka bannaan ee dadku ay joogaan. waxaana la sheegay in uu markaasi doonta ka tuuray kuna qarqiyay biyaha kana diiday in uu badbaadiyo. waxaana halkaasi ka dhoweyn waxdada. ninkani ayaa la sheegay in uu markaasi isaga laftiisu iska tuuray doonta oo uu markaasi galay biyaha isagoo markii dambe u qeylidhaamiyay dad aagga ka dhowaa kuwaasi oo ku soo qaaday doomaha nooca la buufiyo ee badmaaxyadu ay isticmaalaan. markii la soo badbaadiyay ayaa sheekadu halkan ay ka bilaabatay. waxaa la geeyay isbitaal muddo lagu hayay, waa la baaray, daawooyin baa la siiyay. daawooyinka markii la siiyay ninkan waa la wareystay. waxaa la yiri sidee hooyada u dhimatay adigana aad markaas ku badbaaday. arrin cajiib uu ka sheekeeyay. wuxuu yiri aniga badbaadada waxay iigu sugnaatay buu yiri oo aan ku badbaaday dadkaas iga soo gaaray inta aan u qeylaaminayay dad meesha ka dhowna hooyaday waa ay naf baxday. asaate kiiska markii ay dambe baariyaashu galeen ayaa waxaa la ogaaday ninkani in uu markaasi isaga gacantiisa ku qarqiyay hooyadiis oo doonta ka tuuray sabab la xiriira dhinaca maaliyadda. waxaa la sheegay ninkani inuu qabay xanuun dhinaca maaliyadda ah oo markasta uu sheegi jiray inuu dhaxlan doono ama saaxiibadiis uu kula sheekaystay inuu dhaxlan doono lacag $100,000 oo akoonka hooyadiis ku jirta. wuxuuna si cod dheer ku sheegi jiray in uu maalmaha ka mid ah marka waalidkiis ay geeriyoodaan ama hooyadiis ay geeriyooto uu lacagtaasi isaga ku dalxiisi doono meelo kala duwan oo caalamka loo dalxiis tago. haddaba maxkamadda ayaa waxa ay soo warisay oo kiiska ninkani ka cusub in uu dalbaday maanta in kiiskiisa loo qafiifiyo oo markaasi wuxuu ku xukuman yahay xabsi daa'im in loo qafiifiyo oo markaasi laga sii daayo xabsiga. lacag uuna dhigo oo gaaraysa $10,000 oo akoonkiisa caadiga ku jirta. wuxuuna sheegay in lacagta $10,000 iyo baasaboorkiisa uu u dhiibi doono kooxaha qaabilsan dabagalkiisa iyo in uu xabsiga qayb ka mid ah uu ku qaato bannaanka. haddaba arrintaasi ayaa waxaa walaac ka muujiyay dadka deegaanka uu ninkaasi ku nool yahay oo lagu magacaabo Middletown, kuwaasi oo sheegay in ay aad uga naxsan yihiin in ninkaasi xorriyad la soo siiyo oo bannaanka u yimaado. dadka deegaanka ayaa sheegay
in ay markaasi ninkani uu horay u dilay awowgiis oo lagu magacaabi jiray John Jacques iyo hooyadiis sababo la xiriira dhinaca dhaqaalaha isla markaasna haatan loo baahnayn in lagu soo sii daayo dadka dhexdooda. ninkani ayaa waxa ay dadka isaga u doodaya ay sheegeen inuu maskaxiyan uusan u fiicnayn iyadoo dhowr mar intii xabsigiisu uu socday la geeyay isbitaallo lagu daaweynayo xanuunka dhimirka ninkani haya. waa arrin cajaa'ib ah in lacag $100,000 awowga iyo hooyadaaba aad isku raaciso. waxaasoo kalena waa waxyaabaha yani bulshooyinka islaamka inta badan aan sameyn, balse bulshooyinka galbeedka inta badan waxaan iyo wax ka daran ayaa laga arkaa. muuqaalkeena maantana intaasuu ku egyahay. fadlan channelka subscribe saara oo kusoo biira wararka dambe iyo barnaamijyada dambe ee xiisaha leh ee halkan aan kusoo gudbin doono.